marka aan jooga marka mudug maray aan marka waxaan iri war meeshaana dhibaatadu ka dhacday waa meesha oo Soomaaliya dagaalka looga curiyo saasa la dhahay idinka isbedel ma keentiinaho war niman yahow ma sameeysiina in nabad la gaaro haddana ma curisiina kelimado markay wuxuu yiri niyahow nabadu taariikh ma leh geeda nabad la yiri wax taariikh ah leedahay saadiyada marka anaga dibka ma haysto ma aragto inaan taariikh rabno colaade idoo nabadu imaanaama la noolaha nabadina taariikh ma laho ninkaas sheego wuxuu yiri dadka dhamay u roonto qof gaar u leh male arrintaas horta waa nahaysaa nabadu inay taariikh leedahay aan horta suurta gelin dhaqanka labaadood Muqdisho ku arka xamar weyni sagaasheekoodii markaan imidaan waxaan iri oday oo weyn oo dadkii hore ah oo Talyaaniga la shaqeeyay oo reer xamar ahaan ii waran intaad adduunyo joogto waahay adiga ninka dhalin badan ma noole maxaad igu kordhay hood sheegay oo taariikh hood haysa maalintii igu yaabka badneedo waa maalintii aan inta fiiladi tuurta malay weyn igu dhacay oo badda igu ridiyo maalintaas ay igu taariikh adkeeyay labadaas nin ma iskeenayaan marka معايا لأن كان واحد مختيجو يا ملاي جب بدأ كل ريده وكبلا وارد كان أنا بدي أوك عرض أو تاريخ أنا تاريخ سماوري مركب وحالي دي شيء مدحوينا حسن وهو يوي مدي أو كسور دوي جيبوتي جيبوتينا وحوايا دوا ودولة الصومالية متقانا لقى آسي إسلام مركزنا ديك ولا النمو نقدح مركو يمدي وسور دوي آدي مركا مدحوينا إسماعيل عمر قيل أو ugu sameeyay munaasabad aan waligeer la arag oo taariikhiya oo bilad dalkaas ugu sareysa afarta laga saaro lagu soo dhaweeyay marka madaxweynihii markaan gaar u arkaa dad meeshaas yimaad moogta ana maamulka leh safiirnimadu waxay ku fiican tahay meeshada hadii la yimaado maamulka adaa lagaaga dambeeya marka maalintiiba 10 mar 5 mar waa ku naqay waa ka baxay waa ku naqay horta dadka Soomaaliyeed oo halkaas jooga kulli oo alla kulmi dadka Soomaaliyeed oo reer Jabuuti oo Soomaalida oo Jabuuti jooga nin walba oo yimid madaxweyne maanta hayga hor imaanaan iyo dadka ii qaabil markaas wuxuu yiri وكو قابله قفك ما قد دقيقو لي شنشن دقيقان كو بخاها اما تكون بخوينا ويريو واجل شو نينكي markii oo 5 daqiiqo u dhamaad qof la bixi kara male madaxweynuhu marka wuxuu yiri salaado meeshan qof waa la soo gali karaa laga bixi ma karo wala kuma dhow meeshan qof waa la soo geliyaa laga ma bixi karo marka nasiib wanaagsanay ugu dhamaata markaan gaar aan madaxweynaha isu aragna wuxuu yiri si Soomaalinimo aan u wada shaqeyno